waxaan idinka warbixin karaa waxaan ahay saraakiishii ugu horreysay oo gashay Albari oo dagaalka gashay hadeerna waqtiga Toomari wax ka hooseeya jooga halka waa idinka warbixinaya dagaalkaasi wuxuu nagaga horyimi meesha la yiraahdo Dhabjaan waad ogtihiin qaraxii iyo xabadooda socotaan laga horto ciidamadu umaha waa ka soo gudbeen diyaarad waxa uu ku keenay galay tulada gacanahayagan ku soo intii ka dambeysana waa sii soconay dagaalka balaaran oo aad maqasheen laba dagaal baa ugu xoog weynaa labada dagaal mid wuxuu ka dhacay meel ay baqtiweyn oo iyaga 80 nin ka oolayd maalinta waxay qaateen iska daa 80 nin baa goobta 80 dhowr nin baa goobta ka oolaa waxay qaateen iska daa may boqol iyo waxay ahayd baa malay boqol iyo 14 nin boqol iyo 14 ma ay 80 baa ka kaga dhintay safay xiran oo aan la malaynayn oo dadku indhuhu u dilaaceen yaa halka aan ka mudanay dagaal baa ka dhacay dagaalka guulbu ragna waa ku dhintay guulna waa dhalin dagaalkii loo wuxuu ahaa habeen bay ahayd haraaniya la yidhahdaa qarax iyo waxa weeye ciidan waa socda oo tiradooda 300 gaarayso baa guutada yar soo weeray aan ku jiray anigu ilaahay amarkiis ilaahay baa nala jira dadku hadduu xaq ku soconayo rabbi baa la jira xaq baan ku soconaynay dalkayga aan u halgamaynay waxa weeye xaq baan ku soconaynay dadka nagu soo duulay oo meesha soconaya dad xaq ku soconaya ma ahay gaari bay waxyaalaha qarxa ka soo buuxsheen loogu talagalay boosaasan inuu bardumiyo gaarigii maqrixi labadii nin oo watayga waa dil taasna waxa weeye guul baan ku dhalay intii ka dambaysay waxay firxad bay ahayd labada dagaal hadday ku jabeen intii ka dambaysay waxay firxad wadadkooda ku jiro godadka lagu dhacay baaqiyad yar baa hadhay ciidamadu halkan fiican bay galeen halkankii fiicnaa ay galeen wali waa ku jira waxaan idinku boorinayaa dadkiina Puntland iyo beesha Muuse Zeelabaan oo soo fariisatay meesha ciidamadu halkankay ku jiraan in lala gabo ciidamadu halkankay ku jiraan in lala gabo waxay ku tahay miraheedii baynu guranaynaa maanta waxaynu guranaynaa waa miraheedii magaaladan dhex maray ma dhex mari jirin magaaladan ma dhex mari jirin askarku ma dhex mari jirin sarkaalku ma dhex mari jirin odagu ma dhex mari jirin nabadoonku ma dhex mari jirin kulli ma naftooda u cabsan jirin maantana saxaafadii iyo nabadoonkii iyo sarkaalkii iyo ningarboodkii kulli way dhex mareen nabad baynu ku haysan waxaa la yidhi dhibta gadaalkeeda dheefta la helo dhibta gadaalkeeda baa dheefta la helaa dheefteedii waynu helnay waynuna guran waxaan rabaa inaan ku booriyo dadweynaha Puntland iyo beesha ugaarsan oo meesha soo fariisatay hawlka madaalo wali waa hogadii wax yar oo yar baa meesha wadankii ku haray waxa yar waxa weeye waa lagu raadjooga lagu raadjoogo inuu wax ka gadaal rabo intaas waxa weeye guusha dawladdu dhalisay tan kale oo aan idiin sheegayo oo ah wuxuu yiri ninkii la oran jiray calafyare kafta gibin oo hawaa la isu geliyay aruu sarkaal dawliyaana hayo waxyaalo badan oo macnaha inaan ka hadlo waa ugu nooc dawladda laakiin waxaa jira waa dawladdu u jeedaa xooga cabasho ah bay reeru qawaaniin cabashadaas waxay la tahay dawladdu iyada ka saari doonta cabasho
waxbarashada waxa ugu weyn ceelal weeye